السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشركي waxay noo socda qalbi saliim ilaa baa la talaba qalbi saliim quraanka inuu shifaa u yahay lima fi sudur laabta inuu quraanku u yahay caafimaad bishana waa shahru quraan marka maxaan kaga faa'iideysanaynaa bisha Ramadaan inaan wixii qalbiyadeena soo gaaray hore u soo gaaray inaan ka caafimaadino hadda kadibna qalbigeena inaan xafidno insha Allah qalbiga marka waxa ku soo arooraya xasad waxa ku soo arooraya shaydaan waxa ku soo arooraya xiqdi waxa ku soo arooraya waswaas calaamad su'aal badan maanta dhan kan haduu dhici lahaa kii kale haduu dhici lahaa kan hadii la yeelo kana yeelaha يعني وبدن yahay problemka qalbiga ku dhaca lama soo koobi karo marka maalinba meel baan soo qabanayna maanta waxa ka sheekeynayna qofka haduu waxba ka xishoonaynin qalbigiisa xishoodka iyo qalbiga dhaawaca maxaa kala galay فإذا لم تستحي أنبيادي هو رسولك وحن كسو قانون عليه الصلاة والسلام فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذا حشونين وحارب تتسمع وحاكى له رسولك اللي عليه الصلاة والسلام بني آدم كدتك يا أجو ناكسن وحأجو ناكسن ولي عليه الصلاة والسلام رسولك عليه الصلاة والسلام حدا وحدتك وحأجو ناكسن كقلبي جو ناكسن هذا الرون لوجا عرب كيس وحوك شجاع رون بين نفتيس أم قورو عرب كيسنا بين أنو كشجاع أم قورو قلبي كيسنا وصافي وقلب سليم marka labada saddexda qodob runta iyo qalbiga saafiga oo horeba noo soo socday iyo fayda lam tastahi fasni ma shita qof marka haduu xishoonaynin wax kasta ka suurooba qooriwa ayuu noqonayaa naftiisa ma xakameyn karo shay kasto arko uu jeclaanaya shay kasto arko uu taminanaya naftiisa ma tarbiyeysano naftiisa akhlaaq ma laha akhlaaq anagu waxaan aqaan qofka caayin qofkan kan maya akhlaaqdu ka baaxdo intaas qofkan qalbigiisu xakameynaya nafsadiisu xakameynaya waxa wanaagsan haduu qofka walaalkii ku arko ma sha Allah uu dhahaya wax xumaata haduu ku arko niyadu uga duceynaa xitaa kuma soo hadal qaado war maanta maxaasan warkii kala maxaa waay ma dhahayo xaafad baad booqatay shu'uunu daakhili ma gelisid booqashada u booqatay bas aad soo gabagabeynaysaa oo soo duceynaysaa waa ka soo tagaysaa wixii xaafada yaala wixii gogol xaafada taala wixii qurux xaafada taala indhaagood kala baraysaa hadii quruxyiina ma sha Allah dhahaysaa hadii ka kala daadsan yihiin ilaa isku toostoosay aad dhahaysaa xishood la'aanta waxyaalo badan oo dhaawacay qalbiga oo keenta kaba soo qaad waxaad aragtay gabadh baa tahay guri baa booqatay guriga alaabta taalaad aragtay kii gurigaaga ku yaalay maba ku qurxoonaba nuurka waxa lagu saaray shaydaan iyo naftaada ay ku saartay xaafadaas waxaad ku soo aragtay waad baxaysaa one week ayaad xijaab iyo kobo u qaadanaysaa markaas ninkaadina waxaad leedahay lacag wad wareeg dhiyo xagan ka maxaa raadinaysaa qalbigaaga taasaba ka dhex guuxaysaba waad soo weynaysaa sababta soo weysay taqaana iimaankaaga nusqaas ku jiraan shaydaan iyo naftaadii asla socdo shaydaan insaad noqotay wax bani aadan xafidiisaad ku soo aragtay u qoori weysay ma xishoonin qofkaasna maadan ka xishoonin ilaahna maadan ka xishoonin sababta waxa xaafadaas ee markaad soo dhigato bir qofkan aad bukooto ama xaafadaada wax ka dhaco oo ku soo booqdo wixii xaafadaas aad ku soo aragtay u yaalo markuu arko uu ku garan inaad xaasitaay inaad qooriwaato ku garan birna ku aamini maayo wuxuu dhahay qofkan xaasid buu iga yahay gurigeyga keenay ma uu ka tashanaya uu ka tabaabusheesanaya soo marka ma xishoonaysid gabadh baad waxaad ku arkaysaa dhar qurxoon ma xishoonaysid wiil baad waxaad ku arkaysaa gaari VIP gaariga hore iska bedel war meeqad ka soo bixisay war xageed ka keentay yaani war waxba kugu ma ogeeyne war soo adigii shiidka ahaa war xagee baash ka soo gashay maalmahan baash waa ku fadhidaay qooriwa.com ya waxa hadda umadeena ku badatay afkii baa laga waashay afka wuxuu rabaa in la xakameeyo قل خيرا أو ليصمت أما خير كهذا أمس كأمس محاش أنت داخلية ما أنت دنكو قليي صابته قلبك هذا أيا بكاء محشون يسيد إيمانك يحشوتكو وإسلا سعدان هدي إيمانك ناقصه أفكا قالك قرنا حشود ملهيد ما أنت بني آذن كاس وبعد ما أنت لو حي هستان وبعد لها حقيقة كينين وحال ربا لبشون inaad ka maseerto labada shay oo qof ilaahay maal siiyay oo maalkaas dar ilaahay ku bixinaya jidku ilaahay jeclaa ku bixinaya wad ka maseeri karto xadii karta Allah ilaahay maalkaas aad hebel siisay ama heblaaya aad siisay anigana isii saas ilaahay khayrkaas aan ku qabto aan kuugu dhawaado iyo qof ilaahay quraanka ku irsaaqay xaafidul quraan ka dhigay lisaankiisa quraan ka dhigay qalbigiisa quraan ka dhigay dhaqankiisa quraan ka dhigay hadalkiisa quraan everything noloshiisa dhan step by step waa quraan qofkaas waa quraan socda ومدين وبريا dhaqankiisa wuxuu quraan ka reeban oo ka reebto wuxuu quraan ku fareen oo fartoomay qofkaas wad ka maseeri kartaa Allah ilaahu qolkaagaas 3 sano nabi maxamed ku soo degay kaleey sallallahu salaam qofkaas xifdiyay macal dhaqankiisa haysta ilaahu anigana isii macallimiin badan waxa jirta qaariin oo quraanka dadka baras laakiin dhaqankii aan haysanin maya dhaqan ahaan iyo qowl ahaan baa loo rabaa
dhaqankaagan waa inuu quraanka raacsan yahay taabacsan yahay waa inuu wax ka reebtomta wuxuu ku farayna waa inaad faran tahay dadkiina waa inaad baraysaa khayrkiina waa inaad umada quraanka jacaylaysiinaysa ugu yeeraysa qofkaasaad ka masiiri kartaa waxa dhaysa ilaahay sida heblaaya ma hebel iga dhig anigan ilaahay saas quraankaagan waa khariyo umada aan baro oo quraankan aan ku dhaqmo labadaas baad dhihi kartaa niyadaada aad ugu sheekeen kartaa wixii inta ka soo hadha maya waxaa laga yaabaa reer wanaagsan oo iska dhaqano maasha Allah inuu nin arko isagana oo balbalsan yahay oo hadiya habeenba dab ay ku shidan yihiin wuxuu leeyahay ninkan soo iga hormaray soojadiisa fiican Soomaa soojadiisa xaqiisu ka dhisan yahay sirtiisa lama maqlo doodooda lama galo maxaan ku dhahay buuqooda lama maqlo gartooda lama galo saacad kasto dhalaalaya ilmihiisi waa kan aniga waa kan saan baan u daalay intan xoolaan haystaa hadana dabkan baan ku dhex jira seen yeela maanta dhan wuxuu ka sheekeenayaa carabku wuxuu yahay reerkaas degan markaas wuxuu ka sheekeynaa markay isku imaadaan reerkiisa iyo xaafadiisa wuxuu leeyahay bal sir gurigiisa ha ka sheego markaas midkan miskiinka iska daacadkaana reerkiisa ka sheekeynay waa kan oo kana la yeelaa nimcadu ilaahay si isagana qarsan maayo warami halkaas baa dabka laga shid waxaad arkay gabadhii xanuunsan gabadhii caajisan waxa laga yaabaa in la dhaho waryahay war ma sha Allah warba maxaa gurigaaga casuumadiisa jecelnaa oo soo xaabin guriga buu keen gabadhii dhabarka isgoyni wax kasto oo wanaagay sameeyni ma sha Allah la dhihmaayo waryaha guriga waxba laga ma waayba cuntada wallahi xaafadiina kan waay kii kala waay xanta waxa lagu yaqaanaa iyo isdabagalka iyo dumarka laakiin ragga hadda ka dheereeya ilaahay labadaba hana soo wada hanuuniyo markaas gabadhi ba carab la gelin gabadhi jirro kama baxayso guriga jirro kama baxayo guriga buuq baa soo gali ilmihi buuq baa soo gali meel laga haysta lama garanayo waa inta yar ee la isku soo ururiyo wanaagaas ay sameeyeen ay ku kasbadeen carabkaas ninkiina waa dhug fahmi maayo waxa gurigaaga loogu mashquulsan yahay waxa gurigaaga loogu soo ordaya dhihmaayo qofku ka asturan yahay qofku ka xafidsan yahay qofku sirtiisa iyo gurigiisa iyo asraartiisa ka dhowrsa badan yahay oo ka baraka badan yahay oo kana hormar badan yahay horumarayaan loo arkeen xoolo badan iyo gawaari badan iyo maraakiib badan inaad haysatid maya sharaftaas iyo cizigaas iyo nuurkaas iyo buuqaaga aan la maqlaynin waxa waay fadli gooni ilaahay kugu fadlay waa nimco gooni ilaahay ku siiyay marka isbooqashadii awal waxay ahayd raxmad iyo naxariis iyo sharaf iyo waxay ahayd jacayl laakiin hadda isbooqashada aafa iyo waxay noqotay carab sababtoo ah fayda lam tastahi fasna ma shita waxay rabaan bay umada kugu sameeyaan waxay rabaan bay ka hadlayaan ma bixishoonayaan carabkooda wixii ku soo dhaca baba waa la iska daadinaya tiirun ahaydna haba sheeginba shay kasto la sheego hal shay runka ah sagaalka kale waa lagu macaaneynaya been baa lagu daldalaya ma soo gelaysid marka beenta iyo runta kaligeeda 10 ah xishoodka kaligiis baa 10 ah qalbi saliimka kaligiis baa 10 ah laakiin waa idin soo koobaya marka adiga halkeed baad kaga jirtaa ma dhinaca faydan lam tastahi maad ku jirtaa ma dhinaca waxaad ku jirtaa qalbiga xiqdiga maad ku jirtaa oo xaasidka 10ka bari oo noo bilaamaya ma waxaad ku jirtaa qofkan oo maxaan ku dhahayay qoriwaaga ama waxaad ku jirtaa qofkan beenalowga oo shay kastaba been ku daro ku macaaneynay keebaad ku jirtaa indhahaaga laabo carabkaaga laab qalbigaaga laab xaq ilaahay u jeedso oo xaq ilaahay u laab oo xaq umada ka soo jeedi oo shaydaanka ka soo jiid bisha shaydaanka xidhnaa la xidhay kaga faa'iideyso marka inaad qalbigaaga tarbiyeyso inaad carabkaaga tarbiyeyso inaad maxaan ku leeyahay jismigaaga tarbiyeyso inaad lugahaaga tarbiyeyso adimadaada dhan 366 ka adinku si inaad tarbiyeyso oo qalbi saliim aad ku tarbiyeyso markii rabadaanta laga baxana halkaas aad ka siimisto oo dan dib u noqonin ku dadaal nafteena ilaahay noo saqiro kuwii qalbi saliim la imaada oo qalbi saliimkaas ilaahay ugu naxariisto 10 naxariistan ku jirna ilaahay naxariistiisa nagu irsaaqo ilaahay naga dhigo assalaamu calaykum